madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Allah u naxariiste ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. madaxweynaha ayaa tacsiyo u diray dhammaanba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskiisii asxaabtii uu ka geeriyooday Allah u naxariiste ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. madaxweynaha ayaa sheegay in marxuumku uu door weyn ka soo qaatay halgankii xorriyadda ummadda Soomaaliyeed iyo dhisitaankii dawladda Soomaaliya. ugu dambeyn madaxweyne Xasan Sheekh ayaa alle uga baryay marxuum Cabdirasaaq inuu jannatul firdaws ka waraabiyo eheladiisa asxaabtiisa iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ka siiyo. Allah ha u naxariiste marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxa uu ku dhashay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa uuna dhashay 1920kii. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa ra'iisul wasaare ka soo noqday dalka sanadihii u dhaxeeyay 1964 ilaa 1967 waxaana lagu xusuustaa in uu ahaa raggii dadaalka u soo galay gobonnimadii Soomaaliya. Allah ha u naxariiste marxuumku waxa uu xubin ka soo noqday ururkii gobonnimo doonka ee SYL. Maxamed Bilegeelle, Somsat, magaalada Muqdisho.